wax badan bay yiraahdeen Somaliland waan goosanayna waqooyiga danta la lahayn Yahuud ayaa loo goynay ayay ahayd waa soo cadaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in Yahuud loo goyn rabo iyo qolo kale 22 bisha 12aad waa habeenkii Jumcada 1991 waxaa laga dhageystay idaacadda Yahuud oo loo yaqaan BBC waraysi lala yeeshay nin gaal ah oo Kristaan ah waraysigu waxa uu dhacay sida soo socota warku waa war aad u xun marka dhageysta ninka xukunkiisa oo man siin doona hadii Rabbi qadaro subhanahu wa ta'ala wariyaha idaacadda Yahuud wuxuu ku yiri gaalka ka socda aan qolada Kristaanka magacaaga maxaa la yiraahdaa wuxuu sheegtay in bulxan la yiraahdo iyo magac noocaas u eg wariyaha idaacadda Yahuud wuxuu ku yiri xageed ku dhalatay wuxuu sheegtay gaalku inuu ku dhashay waqooyi galbeed wariyaha idaacadda Yahuud wuxuu yiri waqtigee baa tagtay dalka Yahuud iyo meelaha aad joogtid oo aad waxyaalaha qaar ka sheegaysid oo ka soo baxday 1987 ilaa 1988 sidaas ayuu sheegay waxa sheegay saas ninkii gaalka ahaa wariyaha idaacadda Yahuud wuxuu ku yiri yani markuu sidaa ku yiri hadda ma waxaad haysataa yani diinteed haysataa wuxuu ku yiri gaalkii masiixiyadda ayaan haystaa wariyaha idaacadda Yahuud hadalkaas ayuu ninka sii weydiiyay wuxuu ku yiri xisbiga aad yani hogaaminayso ujeedadiisu waa maxay xisbigaas oo ah Christian oo xisbi Kristiyaana oo yani ka jira Somaliland wuxuu ugu jawaabay waxaan doonaynaa inaan ka qayb galno doorashada iyo dawladda laga dhisayo Somaliland inaan ka qayb galno ayaan doonayaa sidaas ayuu yiri ninka ka socda qolada gaalada ah wariyaha idaacadda Yahuud warka ayuu ku soo celiyay wuxuuna markaa weydiiyay imisa ayay la eg tahay inta aad haysataan kalsooni iyo dad gaalku wuxuu yiri Somaliland dadka u dhashay qoyskii 2 nin ayaan ku leenahay markaan ugu liidanana 1 nin ayaanu leenahay sidaas ayuu gaalku ku jawaabay waxaan u fiirsan hadalka uu ninka gaalka oranayo wuxuu ninka asaga ku yiri oo yani ma wax haysataan kalsooni badan ha buu yiri maxaa yeelay markaan ugu yaraan qoyskii waa 1 ama waa 2 qofood sidaas ayuu u sheegay bal waxaa jira 350 caruur gaaraysa oo lagu tababaro dalka Yahuuda lana baro diinta Yahuuda idaacadda Yahuuda wariyaheedu wuxuu yiri oo ilmahaasu diintay haystaan ma diinta Yahuuda gaalkii wuxuu yiri ha diinta Yahuuda ayay haystaan wuxuuna markaa sheegay gaalku in ilmaha la soo qaaday 1987 ilaa 1988 oo halkaa la geeyay wadanka Yahuuda gaalku wuxuu yiri caruurta waxa gacanta ku hayda gabar Soomaaliyeed oo loo yaqaan Luul ayaa gacanta ku haysa oo maamusha tarbiyadooda iyo waxooda waxaana si dhab loo bari doonaa diinta Yahuuda dibna waa loo celi doonaa Soomaaliya